erayada cagaf, boos, burburin, boob, booyin, barakac iyo baaruudba waxa ay ka mid yihiin erayada baryahan loogu hadal haynta badan yahay magaalada muqdisho. waxaa magaalada muqdisho ka socda jahawareer baahsan oo la xiriira burburinta guryaha iyo barakicinta bulshada tabaalaysan, kaasoo hadda isku sii bedelaya qalalaaso xoogan oo amniga taaban kara. waxaa xusid mudan in intii aanu duubaynay barnaamijkan uu gobolka banaadir si ku meel gaara u hakiyey howlaha dhulalka kadib markii ay xaaladu gaartay isku dhacyo foolka fool ah oo dhex maraya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo dhinaca iyo dadweynaha qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir oo dhinaca kale ah. daynila ayay ahayd midii ugu dambeysay ee ay baryahan oo dhan ka socdeen qulqulatooyinka sababay dhimashada iyo dhaawaca isa sii taraya. tallaabadii hore uu qaaday gobolka banaadir waxaa lagu tilmaamay mid sharci darro ah, tan uu maanta qaadayna waxaa lagu tilmaamayaa fashil maamul. hase yeeshee qiiladhaanta la xiriirta arrimaha dhulalka muqdisho waxay ahayd mid soo taagnayd sannadihii lasoo dhaafay, isla markaana isa soo taraysay maalinba maalinta ka dambeysa ilaa ay iminka soo gaartay heerkan oo u muuqda inuu yahay dab wada gaaray bari iyo bogox. kusoo dhawo sawirka guud. magacaygu waa maxamed cabdi xareere. sawirka guud waxaan maanta kusoo qaadanayaa qodob hordhac u ah barnaamij taxane ah oo aan ka samayn doono mashruuca dhulalka iyo mashaqada ku gadaaman. balse marka hore aynu eegno 60 lebiqsi wararka ugu waaweyn caalamka. haddii aan ka bilaabo Iran ayaa waxaa la sheegayaa inay dib u eegis ku sameynayso soo jeedin nabadeed oo uga timid dhanka Mareykanka si loo soo afjaro colaadda halkaasi ka taagan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayay in dagaalku uu si degdeg ah uga dhammaan doono halkaasi. Israel ayaa tan iyo markii ay xabad jejintu bilaabatay mar kale weerar dhanka cirka ah waxa ay ku qaaday xaafad ku taalla koonfurta Beirut ee dalka Lebanon, iyadoo bartilmaameedsanaysa siday hadalka u dhigtay taliya sare oo ka tirsan Xisballah. markabka dalxiiska ee MV Hondius ayaa kusii jeeda jasiiradda Canary ee dalka Spain kadib markii dhowr qof oo rakaaba laga helay astaamaha fayraska hantavirus. dadka qaar ee markabkaas saarnaa waxaa laga codsaday inay iskarantiilaan ilaa 45 maalmood oo ay guryahooda joogaan. war saaxiib yaal aad baan idiin salaam cabdijaliil cusmaan hiya. maxaad iga qariseen library-ga ugu weyn ama maktabadda ugu weyn ee online-ka ah ee ay Soomaalidu ay leedahay ee loo yaqaana Bookoob? maalmahan waxaa waqti badan aan ku bixiyay dhageysiga iyo akhriska buugaagta caalamka loogu akhriska badan yahay haddii ay la xiriiraan sayniska, siyaasadda, falsafada, sirdoonka iyo awoodaha iyo habfakarka oo dhammaan diyaarkooga ah applicationka loo yaqaana Bookoob. Bookoob muxuu yahay haddii aad isleedahay? Bookoob waa app digital ah oo aad kala soo degi karta Google Store iyo Apple Store, isla markaana ay diyaar kugu yihiin buugaagta caalamka loogu akhriska badan yahay iyaga oo Soomaali lagugu soo turjumay. ayaad dhegeysan kartaa haddii aad rabtana summary ahaan aad u akhrisan kartaa. anigu maalmahan halkaasi ayaan u badnaa oo markasta oo aan gaari saaranahay oo aan train saaranahay oo aan safray waxaan la soo degaa xitaa offline ahaan aad kula soo degi kartaa aabka Bookoob buugaagta ku jira. dhalinyaro firfircoon oo qiimo badan oo aan halkan ugu mahadcelinahay ayaa barnaamijkaasi ku farayeeleystay. waxaa la dhahaa waxaa la joogaa information age baa la jooga, laakiin waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato waxaa la joogaa waqtigii waxbarashada ayaa la joogaa oo aad wax kasta online-ka aad iska baran lahayd, buugaagta aad dhegeysan lahayd, cilmigaagana aad kororsan lahayd maalin kasta. anigu noloshayda maalmaha wax weyn ka bedelay Bookoob oo 4 saac dhagaha igu jira oo aan dhageysta. barnaamijkan waxaa daaha ka rogay amaba diyaariyey dhalinyaro Soomaali oo aad qiimo badan. waxaa aasaasay applicationkan oo gacanta ku haya saaxiibkay Maxamed Xaraara, madaxii hore ee BBC Somali Television-ka oo ah hogaamiye dabcan aan aad u xishmeeyo. marka saaxiib yaal kaliya social media waqti ha ku qaadanin, sidoo kale aqoon kororso oo hadda la soo deg Bookoob adiga oo buugaagta online ku dhageysan kara isla markaana ku akhrisan kara. buugaagta aan jeclahay ee ku jira waxaa kamid ah buugan aadan ducaali aad taqaanaan for the record, isaga oo summary ah ayuu ku jira oo aad dhageysan kartaa hadda, iyo buugaag kasta oo aad niyadda ku haysta ugu saameynta badan caalamka. fadlan hadda la soo deg Bookoob oo maanta maskaxdaada kobci. waagaag aan sawirka guud dib ugu noqonne dib u soo laabashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee villa Soomaaliya waxaa la socday dhowr arrimood oo waaweyn oo taariikhda dowladnimada Soomaaliya
qayb ka noqon doona, kuwaasoo isugu jiray dabcan kuwa togan sida mashruucii la dagaalanka khawaarijta oo inkastoo aan isaga naftigiisa la dhammaystirin sanadihii hore guulo waaweyn laga gaaray, iyo amniga caasimadda ama amniga magaalada muqdisho oo si la taaban karo kor loogu qaaday, iyo kuwa toban sida barakicinta bulshada tabaalaysan ee markeedii horeba aysan waayuhu u helin. laakiin marka laga hadlayo qodobkan dambe ee dhulalka, waxaa xusid mudan in dhammaan dowladihii dalka soo maray wixii ka dambeeyey dagaaladii sokeeye ay ku lug lahaayeen bixinta aan qaabka sharciga ah loo marin ee dhulalka magaalada caasimadda ah ee muqdisho. waxaa iyadana xusid mudan in xitaa ka hor dagaaladii sokeeye uu xayndaabka sharci ee lagu maamulo dhulalka Soomaaliya uu ahaa mid daciif ah oo daldaloola leh, isla markaana ay madaxda aan danta shacabka eegayni ay ka faa'iideysan karto. cilmi baaris ay si wada jira sanadkii 2017 u sameeyeen macaahidda Rift Valley iyo Heritage ee xarumahooda Nairobi iyo Muqdisho kala yihiin ayaa lagu xaqiijiyey in dhammaan madaxdii soo qabatay talada ugu sarreysa dalka, laga soo bilaabo madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo dhammaan maayaradii soo maray gobolka Banaadir, muddada ay gebigoodba ku lug lahaayeen arrimo la xiriira bixinta dhulalka dowladda oo la siinayo shakhsiyaad gacan saar leh hadba madaxda wax bixinaysa markaasi. sida warbixinta iyo waaqican horyaalla ka muuqatana, dhammaan nidaamyadii dalka soo maray midkoodna iskuma howlin, umana aysanba fududayn inuu qaab sharci ah u maareeyo arrimaha dhulka ee magaalada muqdisho, qaabkaas oo dowladana u soo celin kara hantideedii, dadweynahana siin kara xuquuqda ay dalkooda hooyo ku leeyihiin. hase yeeshee wixii sanadahan dambe ka horeeyey, waxay madaxdu arrinta dhulka magaalada muqdisho u wajihi jirtay si miyir qab leh oo aan dhagaha laga furaysanayn xaaladda adag ee dalka iyo dadku ay dhex maquurayaan ama ay ku jiraan. waxaa dhici jirtay in meelo cayiman oo dhul dowladeed ah laga iibiyo ganacsato, meelahaasoo aan inta badan ahayn kuwo la degan yahay. haddii ay noqdaan kuwo la degan yahayna si aan qaylo badan aanay ka yeerin ama aanay ka soo laaban ayaa loola macaamili jiray. soo laabashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadibse waxaa soo baxday in gebi ahaanba dhulalkii dowladda ee magaalada muqdisho lagu wareejiyey xildhibaano, ganacsato iyo saaxiibo si dhow ugu xiran villa Soomaaliya. xubnaha lagu wareejiyey dhulka waxa ay bilaabeen inay lacago weydiistaan oo ay ka urursadaan dadweynaha ku nool dhulalka la sheegay in iyaga la siiyey, laakiin dhanka kalena kuma wareejinayn ama dadweynaha lama siinayn wax lahaansho ah amaba wax caddaynaya in dhulkan dadweynaha laga iibiyey. qaar ka mid ah dadweynaha bixiyey lacagaha ay soo weydiisteen saaxiibada madaxweynaha Soomaaliya oo aanu weydiinay waxa ay ku bedesheen lacagaha ay bixiyeen, waxa ay noo sheegeen inay kaliya ku bedesheen in la ammaan geliyo oo aan guryahooda la dumin oo qura, laakiin aanay helin wax dukumiinti ah ama wax caddaynaya in mulkiyadda dhulka iyaga lagu wareejiyey markii ay lacagta bixiyeen kadib. waxay taasi ka dhigan tahay inay mulkiyadda weli leeyihiin dadkii warqadaha ka soo qaatay villa Soomaaliya ee lacagtana ka urursaday dadka, haddana aanan wareejinin lahaanshihii ama xuquuqdii kale ee dhulka ay sheeganayaan. siday doontaba ha noqotee, haddii toban guurooyinkii tagayba ay jirtay dooda ku aadan dhulalka dowladda ee ay dadweynuhu deganaayeen ama dadweynuhu ay deegaamaysteen burburkii dowladdii dhexe dabadeed, maanta halkaa waa ay kasoo gudubtay arrintu. xubnaha aan soo sheegnay ee dowladda Soomaaliya ka soo qaatay waraaqaha dhulalka dowladda, waxa ay maalmahan bilaabeen inay sidoo kale barakiciyaan dadweynihii ka ag dhowaa xarumaha ee dowladda ee iyagu ay sheeganayaan inay dowladdu soo siisay ama ay usoo xalaalaysay. tusaale ahaan, haddii uu gurigaagu daris la ahaa iskuul ay dowladdu lahaan jirtay oo 30kii sane ee u dambeysay ay dad shacab ahay deganaayeen oo guryo fara badan ay ka dhisteen dhulkii uu ku fadhiyey iskuulka, waxaa laga yaabaa in marka ay yimaadaan qolyaha dowladda ka soo qaata warqadaha dhulalka ay sheegtaan in iskuulku intaa ka ballaarnaa oo islamarkaana gurigaagii ciidan ay hortubaan dabadeedna ay cagafta mariyaan. qoysaska haysta warqadahoodii lahaanshaha guryaha ee haddana ay cagaftu dul martay ama ay iminkaba dul taagan tahay
ayaa maalmihii lasoo dhaafay aada u soo badanayay. waxaa maalmahan aada usii xoogeystay gulufta ay xubnahani kula wareegayaan dhulalka, taas oo ay dadweynuhu u fasirayaan ama ay ku macnaynayaan inay xubnahani ka gaarsiinayaan dhammaadka muddaxileedka madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmo uun ay iminka inaga xigto. waxay dadweynuhu aaminsan yihiin inaysan xubnaha ay dhulboobka ku tuhmayaane aysan awood u helayn inay cagaf iyo ciidanba soo wataan wixii ka dambeeya 15 bisha May, sidaa darteedna ay maalmahan laabalaabayaan harjadkooda ku aadan urursiga lacagaha laga sameynayo dadka lagu handadayay in hoygooda la burburinayo haddii aanay lacag bixin. iyadoo uu dalku kusii siqayo marxalad hubanti la-aan siyaasadeed ah oo uu madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud guluf ugu jiro inuu sii xajisto kursiga, ayay dhanka kalena sii socdaan oo ay weliba sii labalixaadsanayaan iskudayada boobka ee hantida ah ama iskudayada boobka dhulalka ah. waxayna arrintani ka mid tahay kuwa ugu waaweyn ee taageeraya mowqifka mucaaradka ee ku aadan inaan madaxda villa Soomaaliya lagu sii daawan karin wadadan yeminka ay ku socdaan. si kastaba ahaatee, maalinta axadda inagu soo fool leh oo ay Muqdisho u ballansan tahay banaanbax nabadeed oo ay mucaaradku ku baaqeen, iyo maalmaha ka dambeeyaba waxaa kala cadaan doona in carada gaamurtay ee laga soo tabinaya shacabka Muqdisho ay tahay wax la bumbuuniyey ama ay sida dhabta ah alamtara u soo dhaaftay. ma isku ka saaran yahay sawirka guud.